inkastoo uu hadal jees uu ku dirayay United oo 89 milyan oo pound markaa ku soo qaadatay Pogba haddana been ma noqon Jurgen Klopp warkiisii ahaa shaqada kuma jiro maalinta 100 milyan oo pound ciyaaryahan lagu soo qaadanayo kooxdii uu ka tagay Klopp waxa ay xagaagan kula soo wareegtay 100 milyan iyo ka badan laba ciyaaryahan waa isbedel weyn oo uu horseeday ninka uga dambeeyay shaqada Arne Slot Liverpool Alexander Isak waxa ay ku soo qaadatay 125 milyan oo pound waa saxiixa ugu qaalisan horyaalka Ingiriiska abid ee la kala wareego waana ciyaaryahanka saddexaad ee dunidaba ugu qaalisan kadib Neymar iyo Mbappe baahinta heshiiskiisa kooxdu waxa ay ciwaan uga dhigtay u qalmay sugidda badan iyagoo u jeeda doonistoodii ay diidmada badan ugala kulmeen kooxdii ciyaaryahankan lahayd ee Newcastle Isak waa gool dhaliye awood badan 109 kulan oo uu ciyaaray Newcastle waxa uu ugu dhaliyay tartamada oo dhan 62 gool oo 49 ka mid ah yihiin kuwa aan rikoorayal ka iman Alexander waayihiisa oo dhan 144 gool ayuu ku dhaliyay 324 ciyaarood oo uu dheelay kooxihii uu soo ciyaaray oo dhan labadii sano ee tagtay Isak waxa uu horyaalka Ingiriiska ka dhaliyay 44 gool kaliya waxa ka badnaa Haaland oo 49 dhaliyay iyo Salah oo 47 mar dhaliyay micnaha Liverpool waxay haysataa xagaaga laba ka mid ah saddexdii ciyaaryahan ee goolasha ugu badan ka dhaliyay horyaalka labadii sano ee la soo dhaafay sidoo kale Isak waa ciyaaryahan dhalin aan lahayn tabtaas oo kalena waa fursad abuure iyo ka qayb gala ciyaareed waxa uu xilli ciyaareedka hore kooxdiisa u sameeyay 50 fursadood waxaana uu ahaa sanadkii tagay lambar 9ka ugu badan ee ka qayb gala ciyaaraha dhammaan weeraryahanada horyaalka ka ciyaara waxa ay celcelis taabashadiisu kulankiiba ay ahayd 37 jeer waa in ka badan lambar 9 walba 12 marna ka badan Haaland waa kubad ku guuleysan raacasho leh waana boos qaata ku fiican boos u qaadashada kubadaha degdegsimada lagu soo weerar galiyo oo Slot u ah gundhiga weerarkiisa sanadkii tagay 287 jeer ayuu u boos qaatay kubado weerar gelin degdeg ah ku socday Salah ayaa ka mid ah 14 ciyaaryahan ee sameeyay ka badan inta uu sameeyay waxaana Salah uu sameeyay 389 mar Isak waa 25 jir bilahan galaya 26 sano waa uu ay arag horyaalkan waxaana kooxdiisu ay sidoo kale ku soo qaadatay 116 milyan oo pound Florian Wirtz 79 milyan oo kalena waxa ay kula soo wareegtay Hugo Ekitike oo kala mid ah Isak boos qaadashada la tacaamulida kubadda iyo dhalintaba guud ahaan Liverpool waa kooxda ugu badan ee sanadkan suuqa lacag gelisa 415 milyan oo pound waa tirooyin muujinaya sida ay kooxdan ay uga go'an tahay difaacashada horyaalka ay sanadkii hore qaaday iyo u diyaar garoobida Champions League kooxda labaad ee horyaalka Ingiriiska iyaduna dhaqaalaha badan gelisay suuqa waa Chelsea oo bixisay 285 milyan oo pound waana kooxda ugu badan ee dakhli ka sameysay ciyaaryahanada ka tagay 288 milyan oo pound Arsenal ayaa saddexaysa waxaana ay bixisay 255 milyan oo pound guud ahaan horyaalkan waxaa saxiiyo isugu jira ciyaaryahanno baxay kuwa yimid iyo deymo la sameeyay 153 mar xagaagan waxaana waa suuqa iibsiga kooxaha Premier League 3 bilyan oo dollar waa in ka badan isku dar inta ay xagaagan qarash gareeyeen horyaalada Spain, Talyaaniga, Bundesliga iyo Faransiiska